kusoo dhawaada Som TV Soomaali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsani kulan wacan daawadayaal waxaad naga daawanaysaan Som TV Soomaaliya xafiiska Muqdisho warbixintan waxaynu ku eegi doonaa sanadka dhamaaday ee 2023 waxyaabihii ugu waaweynaa ee dalka Soomaaliya ka dhacay saddex qodob ayaynu ku eegi doonaa haddii alla idmo ammaanka dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda sanadka dhamaaday 2023 ayaa Soomaaliya markii si loo eego waxay u ahayd sanad wanaagsan oo guulo waaweyn ay soo hooyeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka arrimihii cunaqabataynta hubka Soomaaliya ee saara ee laga qaaday iyo deyn cafinta Soomaaliya oo hal mar isku soo aaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dawladdu u hogaamiyo waxay ku guuleysatay inuu guulahaasi waaweyn Soomaaliya ay u soo hooyaan inkastoo dhinacyo kala duwan muddo dheer ay ka soo shaqeeyeen sidii Soomaaliya hubka cunaqabataynta looga qaadi lahaa sidoo kalena deynta looga cafin lahaa haddana waxaa nasiib u yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas'uuliyiinta kale ee hay'adaha dawladda federaalka waxaa kaloo jiray ku biiritaanka bulshada bariga Afrika oo ayada laf ahaanteeda dhinacyo kala duwan ay ka soo shaqeeyeen haddana dawladdan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo ay ku guuleysatay in arrimahaasi oo dhammi ay hirgeliyaan dhinaca bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay u ahayd sanad wanaagsan oo dhigahooda ay ku dhibceen erayo laabtooda qaboojinaya ku biiritaanka ganacsiga bariga Afrika cunaqabataynta hubka laga qaaday iyo deyntii laga cafiyay arrimahaasi markaynu ka nimaadno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkaas 2023 ee dhammaaday waxa uu galay safaro tirabeela oo wadamo kala duwan uu ku bixiyay Yurub Amerika Afrika iyo Carabba waxaa ugu muhiimsanaa shirarkii kala duwan ee deyn cafinta iyo arrimaha cunaqabataynta hubka Soomaaliya ee madaxweynaha uu ka qayb galay waana guulihii waaweynaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safaradii faraha badnaa ee tirabeelka ahaa ee sanadkaas 2023 uu bixiyay safaradii ugu muhiimsanaa dhinaca amniga markaynu eegnana waa sanadkii ugu horeeyay oo dawlad federaal iyo shacabka oo iswata ay ku dhiiradaan in shabaab dalka ay ka saaraan 16 sano oo ay ku xididaysteen shabaab dawladda madaxweynaha uu ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhiiratay in sanadkaas 2023 guud ahaan dalka shabaab ay ka saarto muddo 4 bilood iyo dheeraada ayaa abaabulkaasi u socday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 3 bilood iyo dheeraad wuxuu ku hoyday oo uu ku sugnaa Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud halkaas oo madaxweynaha uu ka hagayay sidii shabaab wajiga koowaad ee la dagaalanka dalka looga saari lahaa muddadaas dheer ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu fadhiyay Dhuusamareeb ayaa waxaa dhacay guulo waaweyn oo dhinaca dawladda federaalka iyo macawisley fara badan oo gobollo kala duwan sida Shabeellada Dhexe Hiiraan Galgaduud iyo Mudug oo ay barataarayeen ciidanka dawladda federaalka ee xoogga dalka ay shabaab meel badan ay ka saareen waxaa kaloo socday oo jiray shacabka gobolka Hiiraan oo asaguna uu hogaaminayay Cali Jeyte Cismaan oo shabaab ayana meel badan ka saaray dagaal xoogganna la galay dadka qaar waxay ku tilmaameen dhiiranaanta dhinaca dawladda federaalka ay ku dhiiratay in shabaab ay la dagaalanto waa ku dayasho ay ku daydaan bulshada gobolka Hiiraan iyo dhiiranaantii ay u babac dhigeen in shabaab ay la dagaalamaan inkastoo markii dambe hakad weyn uu ku yimid la dagaalanka shabaab haddana waxay ahayd isku day iyo in lagu dhiirado la dagaalanka shabaab oo la isku dayo in shabaab la dagaalami karo sanadkaas 2023 ee dhammaaday ayaa wuxuu ahaa sanad bulshada Soomaaliyeed ay ku xusuusan doonaan dagaalkaas ee lagu dhiiriday in shabaab dalka laga saaro waxyaabihii waaweynaa ee intii dagaalka shabaab lagu jiray dhacay waxaa ka mid ah weerarkii askar fara badan oo dawladda federaalka ay ku geeriyoodeen ee ka dhacay xirada Coosweyne oo waliba taliye ciidan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri aan meel lagu sheegi karin waa taliye Shaama Cabe oo ehelkiisu ay sheegeen in ilaa iyo hadda aanay meelba ku sheegin weerarkaas oo koox shabaab ay fuliyeen ayaa askar fara badan oo dawladda federaalka halkaasi kaga geeriyooday sidoo kale shabaab ayaa iyana dhalinyaro badan oo daacad u ahaa
oo halkaasi weeraray iyana naftooda ku waayay bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ayaa xusuus weyn ku ah dhacdadaas ee Coosweyne waxaa kaloo jiray weerarkaas asaguna la mid ahaa oo ka dhacay Garasweyne ee gobolka Galgaduud oo sidaasi oo kale shabaab iyana dhalinyaro badan ay kaga geeriyoodeen dhinaca dawladda federaalkana ciidan badan ay kaga geeriyoodeen kagana dhaawacmeen waa intii howlgallada la dagaalanka shabaab dawladda federaalka ay waday madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii uu ku sugnaa Dhuusamareeb sanadkaas ee dhammaaday 2023 meelaha uu habeenu ku hoyday sidoo kalena safarada uu ku kala bixiyay waxaa ka mid ah Maxaas Matabaan iyo Aadan Yabaal sanadkaas dhammaaday ee 2023 ayaa culayskii koray ee shabaab dhinacoodu waxay ku ahayd culays weyn oo soo wajahay inkastoo markii dambe uu ka dibacay maadaama dawladda federaalka gulufkii colaadeed ee shabaabka lagula dagaalamayay meel dhexe ay ku istaajisay howlgalkii la dagaalanka shabaab ee dawladda federaalka ay ku dhawaaqday muddada 4 bilood iyo xoogaana la waday ayaa ugu dambayn meel dhexe ku istaagay lama yaqaano xilliga ay bilaabi doonto dawladda federaalka maadaama sanadkii 2023 uu dhammaaday guulihii iyo hamigii weynaa ee shabaab dalka lagaga saari lahaana meesha uu ku hakaday dhinaca kalena waxaa dhacay qaraxyo dad ay ku dhinteen 16 Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax kaasoo wariyaal xataa ay ku jiraan allah u raxmade agaasimigii Somali Cable Cabdifataax Macalin Nuur Qays ayaa ka mid noqday dadkii ku dhintay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Xawataako meelaha kale ee weerar ay ka dhaceen waxaa ka mid ah saldhigga ciidanka booliska degmada Kaxda oo 23 Agost ee sanadkaas ay dhammaaday 2023 koox shabaab ay weerar ku qaadeen 29 bishii December ee dhammaadka sanadka 2023 maalin Jimco ah ayaa degmada Wadajir waxaa lagu dilay xildhibaan hore allah u raxmade Sheekh Ibraahim Saalax Dayfullah dhinaca calaamaha amniga ee dawladda federaalka ayaa si weyn u xakameeyay ammaanka magaalada Muqdisho iyadoo ciidamo fara badan oo wadamo kala duwan lagu soo tababarayna magaalada Muqdisho laga howlgaliyay ma jiran 2023 meel lamid ah meelihii horey loo weeraray oo muhiimka ahaa amba hoteelo amba wasaarad oo la weeraray waana midda ciidanka amniga ee dawladda federaalka ee ka howlgala magaalada Muqdisho ammaan ballaaran loogu jeediyay sida ay u xakameeyeen sugidda ammaanka magaalada Muqdisho iyo waxyaabihii ay damacsanayeen shabaab dhinaca dhaqaalaha markaynu eegno maadaama Soomaaliya dhammaadka sanadkaas ee 2023 ee dhammaaday laga cafiyay deynta haddana bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay isla dhaxmarayaan dhaqaale xumo baahsan inay dareemayaan sanadkaas ee 2023 dhammaaday ayaa waxay ku soo gootiyeen dhaliilo badan oo dhinaca dawladda federaalka oo dhinaca dhaqaalaha ah ay u jeedinayaan iyo waxyaabaha qaar oo la xiriira dhinaca amniga oo meelo kala duwan ka dhacay dhinaca siyaasadda marka aynu ka eegno aynu ka nimaadno safaradii tirabeelka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wadamada caalamka uu ku kala bixiyay waxaa jiray khilaaf u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka Puntland oo 2023 khilaafkoodu ku dhamaystay shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti oo u dhaxeeyay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo Somaliland kaasoo dhaliilo xooggan ay ka muujiyeen dhinacyo kala duwan oo Soomaaliya habka warmurtiyeedka ka soo baxay dhinacyada ku shiray dalka Djibouti ay u dhigeen markii ugu horeysay bogga Villa Soomaaliya ay ku leedahay Facebook lagu daabacay dawladda Somaliland qaabkaas oo si weyn loogu dhaliilay dawladda federaalka habka ay u dhigtay qoraalka iyo ogolaashahoodaba waxaana lagu tilmaamay in dawladda federaalka Somaliland markii si loo eego dawlad madax bannaan ay u aqoonsanayso wadhaliilihii xooggan ah ee loo jeediyay shirkaas ee lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti oo dhexdhexaadyo uu ka ahaa madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele waa waxyaabihii siyaasadda ee 2023 dhacay kana dhacay Soomaaliya dhinaca siyaasadda markii laga eego waa ku mahadsantihiin daawashada warbixinta iyada ee aynu ku eegaynay 2023 ee dhammaaday warbixinta lamid ah intaynu ku wada kulmayno dhammaanteed iyadoo isku duuban nabadgelyo.